kadib xafladan lagu qabtay magaalada Stockholm ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada ka soo jeeda gobolka waqooyi bari gaar ahaan degmada Wajeer ee ku nool dalkan Sweden ayaa ahayd mid ay ku soo dhaweynayeen gudoomiyaha degmada Wajeer gobolkaasi dalka Kenya Maxamed Isaaq oo isagoo ku sugan gudaha dalkan Sweden. xafladda soo dhaweynta oo ka qayb galeen qaybaha bulshada ayaa sidoo kale ahayd mid warbixin guud oo ka siinayay guud ahaan arrimaha ka socda gobolka gudoomiyaha degmada Wajeer ee dalka Kenya. haddaba dadka ka qayb gala ayaa iyagu markaasi soo dhaweynta gudoomiyaha waxa ay ka hadleen arrimaha la xiriira inay muhiim tahay in jaaliyadu ka qayb qaadato arrimaha ka socda gobolka ay ka soo jeedaan ee ku yaala dalka Kenya. on maanta iskugu nimaaday xaflad soo dhaweyn walaalkeen gudoomiyaha degmada Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi soo dhawaada halka intii ka dambeysana waxaan noo soo wadi doonaa insha Allah taala xiriirihena sidii aan maaragtay aan u sii wadi lahayn munaasabka. waxaan ku bilaabaynaa ugu horeynta reer Stockholm haddaan nahay waxaa jirta Sheekh Bashiir dadka inta badan waa wada yaqaanaan. Sheekh Bashiir waa nin walaalkeena sheekha magaalada waxaan garanay sheekha inuu maaragtay halka noo imaada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madasha qiimaha sharafta badan inaan imaado runtii aan ka qayb galo waxaan si kaliya laaba ku soo dhaweynayaa odayga gudoomiyaheena martida noo ah sharafta badan waan ku faraxsanahay inuu dhalinyaro yahay oday waayee la sugayay siyaasadda sabankan Soomaalida dad waxaa ugu jiray waaweyn laakiin dhalinyaro inuu yimid runtii aad baan ugu faraxsanahay. maamulka hadda governaga uu hayo kalanta waa maamul aad xasaasi ah maamul loo mataqaana howl badan iyo sabab badan u baahan dad badan waxa la shaqeynaysaa aan hatta fahansanin wax u sheegayso anagoo matalayna dadka u dhashay gobolka waqooyi bari qof iyo laba iyo qabiil midnaba aan ahayn yani niyad guud ayaan kugu salaameynaa runtii gobollo fogaan kaaga imaanay reer Stockholm ma nihin sida dadkii ugu horeeyay ay soo dhaweeyeen governorka magaalada Wajeer ayaan aniguna usoo dhaweynayaa intaa ka bacdi waxaan u soo jeedinayaa runtii amaan iyo maxabba dadkii soo abaabulay kulankan ilaa haddaan cid ka shaqeynin iskama imaadeen kulanku. intaasi kadib waxa isaguna hadalka qaatay gudoomiyaha degmada Wajeer ee dalka Kenya Maxamed Isaaq oo isagoo ahaa shakhsiga xafladda soo dhaweynta lagu sameeyay dalkan Sweden gaar ahaan magaalada madaxiisa Stockholm isagoona uga mahad celiyay guud ahaan jaaliyada reer Sweden ee dalka Kenya ka soo jeeda soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen isaga iyo wafdiga uu hogaaminayo. marka walaalayaal khayr ay siiyo wadnaadsantihiin soo dhaweyseen marka inta qalqaalisay iyo inta maaragtay soo safartay inta isdhiftay maalintii maanta nasan lahaydeen oo reerihii ciyaalka warqab lahaydeen weeyaan waan ogsoonahay marka waad ku mahadsantihiin khayr